BBC oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhageystayaal saacadda Afrikada Bari haatan waa 2 duhurnimo qodobadan idaacadeena idinkugu haynana waxa kamid ah sarkaalkii saddexaad oo iska casila Pentagon-ka Mareykanka ururada bulshada rayidka Puntland oo warsaxaafadeed ka soo saaray doorashada dhawaan ka dhici doonta Puntland waxa kale oo aad maqli doontaan dawladda bulshada rayidka waxay si waafaqsan ugu baaqaysaa shuruucda iyo nidaamka in la ilaaliyo oo processka doorashadu uu noqdo in xeerarka u yaala ilaaliya musharaxiintu ayaga oo raacaya habraac loo dejiyay isla markaasna waa inay aqbalaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada. mid ka mid ah qodobada ay soo saareen ayuu kaasi ahaa waxa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan dhaqan gaar ah oo guurka ku saabsan oo ka jira magaalo ku taala dalka Itoobiya haddaba waa dhaqan noocee ah waxa way gudinta lagu sheegayo sigaarka u dhig jaad sonkor ya wax waliba qalb leeyahay qasharmaha qalb baan u bixinay waxa aynka ah ayaa laga furaa taas hadii dhalinyaradii iyo duqowdiiba lagu farqay horta wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan soo saaraha barnaamijka waa Axmed Mursal Xuseen anigoo Faadimo Macalin Abuukar ayaa idiin soo jeedinaya marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka caalamka iyo Kawsar Maxamed. Sanad Faadimo ciidamada ammaanka ayaa ilaalinaya wadooyinka magaalada Fortaleza ee waqooyiga dalka Brazil si ay uga hortagaan weeraro laga cabsi qabo inay geystaan burcadbadeeda gobolka Ceará. waa talaabadii ugu horeysay oo uu qaado madaxweynaha cusub ee dalka Brazil Jair Bolsonaro kaas oo ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono dambiyadaha rabshadaha ah. haweeneyda yar oo isku dayeysay inay ka cararto qoyskeeda oo degan Sacuudi Carabiya oo ku sii wajahnay dalka Australia ayaa sheegtay in baasaboorkeeda uu kala laabtay sarkaal ka tirsan safaaradda Sacuudiga ee dalka Thailand iyagoo markaa uga tagay iyada garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Bangkok. haweeneyda ayaa sheegtay in ay ka baxday diinta Islaamka isla markaana ay aaminsan tahay in qoyskeeda ay dili doonaan haddii ay dib ugu laabato xaafadooda. golaha ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa ugu baaqay xukuumadda inay ka fogaato inay ka qayb qaadato wareegga xiga ee wadahadallada nabadeed ee Mareykanka lagu taageerayo oo lagu wado in dhamaadka bishan uu ka dhaco Sacuudi Carabiya. afhayeen u hadla golaha ayaa sheegay in guddi loo xil saaray inay kormeeraan dadaalada nabadda aysan ka qayb qaadan doonin wadahadalladaasi. duufaan xoog leh oo toddobaad ka hor ku dhufatay bariga dalka Philippines ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dad gaaraya 126 qof. duufaanta ayaa ka dhashay dhulgariir iyo daadad. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa sheegay in hal nin la toogtay halka 3 kalena ay dhaawacmeen kadib markii isku dhacyo uu dhex maray koox diimeed halka iyo masjid ku yaal Karachi. booliiska ayaa intaa ku daray in dad gaaraya 200 ay weerareen dadkii ku jiray gudaha dhismahaasi. warkii dunidana waa inaga intaa Faadimo. mahadsanid Kawsar dhageystayaal u diyaar garooba haatan qaybaha kale idaacadeena. sidii aad warkeenaba ku maqlayseen sarkaal sare oo ka tirsan Pentagon-ka Mareykanka ayaa iscasilay wana sarkaalkii saddexaad ee xilka iska casilatay intii uu Donald Trump bishii hore ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka laga soo saari doono Suuriya. Kevin Sweeney ayaa noqonaya qofkii ugu dambeeyay ee iscasila. Grant Farad ayaa warbixintan soo diray Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayaana soo jeedinaya. warqadan uu sida kooban u soo qoray Kevin Sweeney ayaa waxa uu ku sheegay in kadib 2 sanadood oo uu ka shaqeynayay Pentagon-ka in la joogo waqtigii saxda ahaa ee uu dib ugu laaban lahaa adeega gaarka loo leeyahay. waxa uu sheegay in sharaf ay u ahayd inuu halkaasi ka shaqeeyo hase yeeshee ma uusan soo hadal qaadin madaxweyne Donald Trump. iscasilaadiisa ayaa waxa ay imanaysaa xilli ay hore xilalkii ay hayeen u baneeyeen wasiirka gaashaandhigga James Mattis iyo haweeneydii afhayeenka u ahayd wasaaraddaasi Dana White. arrintan ayaa waxa ay sii kordhinaysaa hubanti la'aanta haraysay siyaasadaha maamulka Trump ee arrimaha gaashaandhigga iyo dibadda tan iyo markii uu si la yaab leh ugu dhawaaqay qorshaha in ciidamada Mareykanka laga soo saaro dalka Suuriya. talaadada soo aadan ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo
waxa uu ka timi doonaa bariga dhexe halkaas oo muddo 7 uu socdaal ku soo mari doono si uu xulafada dalkiisa ee gobolka ugu soo xaqiijiyo tallaabooyinka ay qaadayaan. Cageer aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal haatana ururka bulshada rayidka ee Puntland ayaa maanta waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ku saabsan doorashada ka dhacaysa Puntland iyo habsami u socodkeeda iyadoo maanta ay ku eg tahay qabashada araajida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada. Haddaba Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Puntland ayaa iiga waramay waxa war-saxaafadeedkooda uu ku saabsanaa. dalada danayaasha dawladda ee Puntland waxay dadweynaha Puntland ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la socodsiinaysaa ama weydiinaysaa in doorashada golaha wakiilada ay u dhacday si daahfuran oo dadkuna ay ku wanaagsan yihiin dhinacyadoo dhan. Lambar 2 dalada boos waxaan bali u diray ducada guddoonka baarlamaanka ee cusub Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo ku-xigeenkiisa gudoomiye Cabdicaziis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. Lambar 3 dalada bulshada rayidka waxay si waafaqsan ugu baaqaysaa shuruucda iyo nidaamka in la ilaaliyo oo processka doorashadu uu noqdo in xeerarka u yaala ilaaliyaan musharaxiintu ayaga oo raacaya loo dejiyay isla markaasna waa inay aqbalaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada qof walba uu ku qanco. Lambar 4 bulshada rayidka waxay ugu baaqaysaa guddoonka baarlamaanka ee doorashada wada iyo xildhibaanadaba inay sida wanaagsan u qabteen qaybta hore ee doorashada baarlamaanka inay tan xigtana u dhameystiraan waajibaadkooda dastuuriga. Marka waxa ay noo sheegtaa hadda sida ay wax u socdaan waa sidee? Walaalle waxay u socdaan si degan oo sida loogu talagalay xagga amniga xagga walaalle nidaamka ee processka doorashada u socoto wax walba waxay ku socdaan sida loogu talagalay aad bayna u fiican tahay alxamdulillah sida daahfuran oo aan cilaabasho lahayn oo wanaagsan u socotaa. kaasina waxa uu ahaa Faysal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada ee bulshada rayidka Puntland ee Bunsa oo qadka telefoonka ugu waramay dhageystayaal waxa ay noo soo socdo warbixin ay ka mid yihiin dhaqan cusub oo gaar ah oo dhinaca guurka ku saabsan oo ka jira magaalo ka tirsan Itoobiya halkaad nagala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 44786 kadib waxay kula tahay BBC Soomaali. Watay dhageystayaal warbixintaasi Itoobiya waad maqli doontaan hase yeeshee dhankaas iyo Sacuudi Carabiya sharci cusub oo laga soo saaray Sacuudiga ayaa dhigaya in haweenka dalkaasi ku nool aanan la furi karin iyagoo aanan ogeyn laga bilaabo maanta oo Axad ah maxkamadaha dalkaasi Sacuudiga ayaa laga doonayaa inay haweenka u diraan fariimo cadeynaya furiinkooda. Wararka arintaasi BBC-da ka qortayna waxaa noo soo koobaya Axmed Mursal. qareenada haweenka ee maxalliga ah ayaa sheegaya in tallaabadani ay soo afjarayso waxa loo yaqaan furiinka qarsoodiga ah. kiisaska noocan ah ayaa ahaa kuwa la xiriira ragga oo soo gabagabeeya guurka ayagoon xaasaskooda u sheegin. tallaabadan ayaa lagu hubin doonaa in haweenku ay si dhammaystiran uga warhayaan xaaladooda qoys ahaaneed iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda dhanka masaariifta furitaankooda kadib. sanadkii hore ayay ahayd markii haweenka Sacuudiga laga qaaday xayiraadii 10 sano ka saarnayd dhanka wadida gawaarida. si kastaba ha ahaatee haweenka ayaa weli u nugul sharciyada awoodda badan siinaya ragga. garyaqaanada Sacuudiyaanka ah ee Nisrin Al-Ghamdi ayaa warbaahinta Bloomberg u sheegtay in tallaabadan cusub ay haweenka ka caawinayso in ay helaan xuquuqdooda masaariifta marka la furo kadib iyo in aan si xun loo adeegsan awoodaha sharciyada ee soo baxa furiinka ka hor. garyaqaanad Saamiya Al-Hindi ayaa u sheegtay wargeyska maxalliga ah ee Ukaad in haween badan ay maxkamadaha tageen oo ay dacwada gudbiyeen kadib markii la furay ayagoo aan ogeyn. Talabadan cusub ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay isbedelada dhaqaale iyo kuwa arrimaha bulshada ee uu wado dhaxal sugaha dalkaas Maxamed bin Salman, sida in haweenku ay ka qayb qaataan ciyaaraha kubadda cagta iyo in ay ka shaqeeyaan shaqooyinka dhaqan ahaan ragga u gaarka ah. waxaa jira waxyaabo badan oo haweeneyda Sacuudiyaanka ahi aanay samayn karin iyadoon fasax ka haysan ragga qoyskeeda sida saygeeda, aabaheed, walaalkeed iyo wiilkeeda. waxaana waxyaabahaasi ka mid ah qaadashada baasaboorka, safarka, guurka, furashada koonto bangi, ganacsiga iyo wixii la mid ah.
axmed mursal aad ayuu u mahadsan yahay oo warbixintaasi noo soo jeedinaya ee qaar ka mid ah dhegeystayaashana iyo boggeena facebooka ee qodobkaasi ra'yigooda uga soo dhiibta waxaana ka mid ah yaasiin gacmo dheere oo jooga degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa dumarka sacuudiga inay ogaadaan furiinkooda waana wado kale oo dumarka loogu danaynayo dhegeystahan kale waa intisaar maxamed waxa ay leedahay waa arrin wanaagsan ee Soomaaliya ayaan ka hirgelin lahaa ayaa ay leedahay haddii aan markaasi ogaan lahaa sidoo kale Sahra Cadaani maysan sheegin halka ay ku sugan tahay waxa ay tiri marka aad guursanaysid way ogeyd marka yaa ku faray ayay tiri in iyadoo moog oo dabcan aanan ogeyn aad furto waxaan filayaa in ragga ay la hadlayso aad ay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi iyo dhegeystayaal kale oo badan oo iyagana qodobkaas ra'yigooda ka soo dhiibtay waa tahay dhegeystayaal haatan ee dalkaasi Itoobiya haddii aan eegno Fayambiro amaba Gurusum magaalada lagu magacaabo oo 25 kilomitir u jirta magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo ku taala xadka gobolkaas iyo gobolka Oromiya u dhaxeeya ayaa Soomaalida ku dhaqan waxa ay leeyihiin dhaqan u gaar ah guurka oo marka hablaha la kala doonanayo waxa la bixiyaa qayb ka mid ah gabaatiga oo lagu magacaabo guntin guntinka waxa ku jira jaad sigaar iyo waliba tobacco waa arrin markaas la yaab leh oo magaaladaasi gaar u ah haddaba wariyaha BBC da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaa Maxamuud Xuseen oo ka mid ah odayaasha Gursum kula kulmay magaaladaas wuxuuna kala sheekaystay habkaasi gaarka ah ee reer Fayambiro ay gabaatiga u kala qaataan waxa weeyaan eega gabdhihii maba nidhaahno hal iibsado waxa weeyaan ku guursaninkii bas waxa bixi lama yidhaa wax reerkooda lagu qurxiyo labada reerba xagga iyo xagganba reerkan baa la qurxiyaa yani reerka la qurxiyo maxaa ka wadaa gabadha markii la guursado ba si fiican loo dhaqdaa miya si fiican waa loo dhaqdaa waxna bixi iyo waxa lama yidhaa dadka kii guursay lama dhibo waxa bixi lama yidhaa waagi hore waxay ahayd inta daadan bixinin igama soo guursanin bay ahayd marka maxaa isbedelka noocaas maxaa keenay gabadhii aan waxaasi waxa bixi aan la odhanin si tartiib ah loo guursado in dadkii horta waxba ma haysan sidii waayii hore gabdhihii inay meesha joogaan waxa ka fiican gabadh meelaha joogto guri ay yeelataa ka fiican ay meelaha dhax socdaan mirable maraanti waxa ka fiican reer bay leedahay ka waran bal idinkiyo gobolada hoose maxaad ku kala duwantihiin xagga guurka gobolada hoose iyo weega sidii u bahayaano sidii waagi horaan hayno yarad baa laga bixiyaa anna wixii yarad loorinay waan joojinay in yaroo dharaarta la isu yimaado lacag badan oo lacag fiican baa la yar bixiyaa laakiin dadku waxay leeyihiin markii lacagta iyo waxyaabaha la khafiifiyo gabdhaha furitaanka ku batay leeyihiin ma dhaba may taa waa la diiday kolkii hore annagu saasaan idho waan ka gilgilanay way socon weydo mid walba waa nasiibkeeda iyo labadu ilaahay soo alfay sina isku waayaan waana la iska wada dhaqdaawn wax kama bixinin lama yiraaba dadku waxay sheegaan oo gobolada hoose ay sheegaan markii gabadh magaalada Gursum laga guursado guntin wax la yiraahdo oo inta badan ku wareeraan kuwaas marka guntinta bal noo sharax waxa weeye guntinta lagu sheegayo sigaarka u dhig jaad sonkor ya wax waliba qalb la yiraahdo qashar ma qalb baan u bixinay wax aynka ayaa laga furaa taas hadii dhalinyaradii iyo duqowdiiba lagu farqi horta lacagna way bixinayaan kolkii guntinta burle lacag baa la soo baati waagi hore lacag un baa yaradka xoolaha laakiin xagana waxa gabaatigu waagi hore waxa lagu dari jiray tooriye iyo waran iyo waxaan kaas lagu dari jiray wixii gabal joojiyay waxa la keenay waxa loo joojiyay meena warmadii tooriye la isku laaya laga absaday moojitaa way hadhay dad idin weydiiyay ma jira oo midlan in sigaarka iyo jaadka iyo xansharka iyo tooriyaha iyo hadda iska diiseen warmaha in waxa la bixiyo dad idin kala hadla ma jiraan oo waxyaabo kale oo ka wanaagsan in la bixiyaa fiicnaan lahayd yiraahda oo meesha sigaarkii jaadka laga bixino waxyaabo kale aan ka bixino dad yiraahda ma jiraan may wali taasina ma soo gaadhin waxa idin kula yaabmaydan arag ma aanan arag taas waa nala hagaagsanaydu waxna ula yaabana ma aanan arag waxa badal leeyana ma aanan arag taan baan ku soconaa nin wax ceeb la ayaa nin kale caado iyo xiraad u ah hadaba Sureer Maxamed Axmed waxa ay nooga dhacaysaa dhaqanka guurka la xiriira ee laga yaqaano magaalada Fayambiro annagu halkan caawa markuu wiilku gabadha ka haysto maxay jaad baa la qaadaa sigaar yar baa la qaadaa waxa la geeyaa oo la saaq fadhiistaa saasa gabadha lagu bixiyaa
marka arrinta maxaa la yiraahdaa waxay dhahaan magan baliya waxay ka dhigan tahay gabadhaasi way baxsan tahay oo looma diiday qoyskaas mar hadii deeyna gabadhii anaga hayna anaga guursanay maganta naga fura la yiraahdaa maganta marka laga furo ka bacdi sida la soo jistaa marka waa kala ama buuriga ama sigaarka ama jaadka oo kale gabadha la ixtiraam ahaan waalidkeed loogu geynayo waxyaabo kale ka fiicnaa dadka qaarkiisaas ma yirahdaan kulay dhaqanka iyaga oo gabadha jaad iyo sigaar midnaba laga keenin wada waa waxa la guursanin weeyaan jaadkii sigaarku waa waxa noogu horeeya waa dhaqanka iyaga wax dad oo wali gabadh naga soo doona oo arinta nagula yaabo ama jaadkii sigaarkii diida ma aragnay intay dadka ay soo wareystaan markay gabadha la kaxaysto dhaqankiinu waa sidee kolka horeba la soo fadhiisto dhaqanka la isweydiiyaa dhaqanka marka la isweydiiyo dhaqanka iyagu waa sida xeerkaas soo maraa ninku saasa gabadha lagu soo guursaday saas marka tabaakada ku keenay jaadkii saas ku keenay marka buraanbur iyo ciyaaro yar yar iyo waxa marka kadib la tumaa markii guntinta la keeno tabaakada iyo jaadka markaas jaadkii waxa la keenay dabadeed gabadha iyo wiilka la isku caruus keenaya la ciyaara nahobalaayo daba nalbaana loo daaray nuur baar lala qabsaday naxaaskii kaani xiilaha naar la kurido codkaasina waxa uu markaasi u dambeeyay warbixintii ku saabsanayd dhaqan gaar ah oo guurka ku saabsan oo ka jira magaalada Fayambir oo 25 kilomitir u jirta magaalada Jigjiga waa tahay dhageystayaal haddii aan eegno qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo qodobkaasi ra'yigooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah waa Faarax Bashiir oo jooga Gaalkacyo waxa uu leeyahay gabaatigu waxa uu ka mid yahay dhaqanada soo jireenka ah ee ay Soomaalidu leedahay balse qaabka loo qaato waa ay ku kala duwan yihiin dhulalka ay Soomaalidu degto ayaa uu yiri aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal ciyaarihi ayaad goordhow maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan waa BBC kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba bixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com watahay dhageystayaal ciyaarihii haddii aan haatan eegnana suuqa kala wareegida ciyaartooyda xilliga qaboobaha ee ka furmay dalalka England, Scotland iyo waliba Jarmalka koodii bishan January ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 31 bishan dalka Spain isagu waxa uu ka furmay 2 bishan halka Talyaaniga uu ka furmay 3 bishan waxa uuna socon doonaa suuqa kala wareegida ciyaartooyda ilaa 18 bishan January ciyaaraha FA Cup-ka ee caawa dhici doonana haddii aan eegno waxa caawa la sugayaa wada ciyaari doona kooxaha Fulham iyo waliba Oldham. Man City waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Rotherham halka kooxda Watford ay is arki doonaan kooxda Wakin. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac. mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Mustafa Axmed Mataan oo jooga Booramo waxa uu baafinayaa Maxamuud Axmed Mataan waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Malta sanadii 2010. haddaba haddii uu maqlayo Maxamuud Axmed Mataan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mustafa Axmed Mataan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Booramo. Faadimo Shacbaan Cali oo joogta xerada qaxootiga Kaakum waxay baafinaysaa Shacbaan Cali waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Luuq Ganaane. haddaba haddii ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faadimo Shacbaan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay xerada qaxootiga Kaakum.
kaltuun yuusuf cabdi oo joogta boorama waxay baafinaysaa ibraahim yuusuf cabdi waxaa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka masar sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim yuusuf cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo kaltuun yuusuf cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay boorama muumina xaaji fayruus oo joogta xerada qaxootiga kaakuma waxay baafinaysaa daa'uud sheekh yuusuf iyo xalimo cabdulaahi nuur waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Itoobiya 1994 haddaba haddii ayna maqlayaan daa'uud sheekh yuusuf amaba jirto cid garanaysa fadlankooda hala gaarsiiyo muumina xaaji ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xerada qaxootiga kaakuma sahra jaamac maxamed oo joogta booramo waxay baafinaysaa cabdi jaamac maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo cabdi jaamac maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo sahra jaamac maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay boorama ruqiye sheekh cabdi xaaji oo joogta awbar waxay baafinaysaa farxiye sheekh maxamed haadi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Norway 1990 haddaba haddii ayna maqlayso farxiye sheekh maxamed xaaji amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo ruqiye sheekh cabdi xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay awbare jaamac cilmi boqore oo jooga boorama waxa uu baafinayaa nuur cilmi boqore waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Eritrea sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo nuur cilmi boqore amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo boqore iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay boorama xalimo axmed xasan oo joogta awbar waxay baafinaysaa sakariya axmed xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Jabuuti 1990 haddaba haddii uu maqlayo sakariya axmed xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xalimo axmed xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay awbar muuse daahir oo jooga baafinaya yuusuf muuse daahir isagoo ku sugan dalka Qatar sanadii 2010 haddaba haddii uu maqlayo yuusuf muuse daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ismaaciil muuse daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay boorama xuseen haylar awbar waxa uu baafinayaa maxamed qadar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan England 1998 haddaba haddii uu maqlayo maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xuseen haydar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay awbar aadan ismaaciil maxamed oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley waxa uu baafinayaa xuseen ismaaciil maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kismaayo sanadii 2002 haddaba haddii uu maqlayo xuseen ismaaciil maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo aadan ismaaciil maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay dhagaxley amaba telefoonka numbarkiisu yahay 2547291276 xasan ibraahim amiin oo jooga awbar waxa uu baafinayaa axmed daahir cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Finland 2011 haddaba haddii uu maqlayo axmed daahir cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xasan ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay awbare maxamed xirsi maxamed oo jooga ifo waxa uu baafinayaa Suleekha maxamed xirsi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso Suleekha ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamed xirsi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee ifo amaba telefoonka numbarkiisu yahay 25472267 zahra maxamed cumar oo joogto qabri bayax waxay baafinaysaa maryan sheekh ibraahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho 2013 haddaba haddii ayna maqlayso maryan sheekh ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo zahra maxamed cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay qabri bayax سعدية عبد محمد oo joogta xerada qof waxa ay baafinaysaa xaawo cabdi maxamed waxa ugu waradan beesay Kenya sanadii 2000 hadaba hadii ayna maqlayso ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sacdiye Cabdi Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xagad dheer Falis Maxamed Mugto xerada qaxootiga ee Dadaab waxay baaftay aadan Farjalla iyo Faaduma Cumar Xaashi waxa ugu waradan beesay dalka Imaaraadka 1994
haddaba way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaaris maxamed maxamuud ayadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Kow Kumraale oo jooga xerada qaxootiga ee Kakuma waxa uu baafinayaa Siraad Maxamuud Kumraale waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Muqdisho sanadii 2006. haddaba haddii ayna maqlayso Siraad Maxamuud Kumraale ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Dalmar Deekow Kumraale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma ama telefoonka nambarkiisu yahay 25474848 Aamina Shukri Maxamed oo joogto xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxay baafinaysaa Xuseen Dayib Xaashi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jigjiga 1991. haddaba haddii uu maqlayo Xuseen Dayib ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Aamina Shukri iyadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga Xagar Dheer. Xabiibo Cusmaan Wardheer oo joogta xerada qaxootiga ee Kakuma waxay baafinaysaa Ibraahim Maxamed Xaashi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Garbaharey sanadii 2006. haddaba haddii uu maqlayo Ibraahim Maxamed Xaashi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xabiibo Cusmaan Wardheer iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma ama telefoon nambarka 2547 Furdooso Axmed Daahir oo joogto xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxay baafinaysaa Fawziye Axmed Daahir waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya 1993. haddaba haddii ayna maqlayso Fawziye Axmed Daahir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Furdooso Axmed Daahir iyadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab ama telefoonka lambarkiisu yahay 0788888700. Cabdulqaadir Cusmaan Xaaji oo jooga xerada qaxootiga ee Kakuma waxa uu baafinayaa Cusmaan Xaaji Cabdi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan isla dalkani Kenya sanadii 1993. haddaba haddii uu maqlayo Cusmaan Xaaji Cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdulqaadir Cusmaan Xaaji iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma ama telefoonka nambarkiisu yahay 2547585515. Farax Cali Cabdulaahi oo joogto magaalada Nairobi waxay baafinaysaa Cali Cabdulaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan isla dalkani Kenya 2007. haddaba haddii uu maqlayo ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Farax Cali Cabdulaahi iyadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi. Cabdiwali Cabdi Jaamac oo jooga xerada qaxootiga ee Kakuma waxa uu baafinayaa Cabdinaasir Cabdi Jaamac iyo Aadan Cabdi Jaamac waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan gaalkacyo sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdinaasir Cabdi Jaamac iyo Aadan Cabdi Jaamac ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdiwali Cabdi Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. Khadiija Faarax Cabdulaahi oo joogto magaalada Nairobi waxay baafinaysaa Aadan Maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mooyaale 2007. haddaba haddii uu maqlayo Aadan Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Khadiija Faarax iyadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi. Xamdi Cabdiwali Cali oo joogta Kakuma waxay baafinaysaa Maxamed Ducaali Maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Ducaali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xamdi Cabdiwali Cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma ama telefoonka nambarkiisu yahay 254733338522. Nimco Faarax Shire oo joogto xerada qaxootiga Kakuma waxay baafinaysaa Axmed Diiriye Xasan, Shamso Diiriye Xasan iyo Caali Diiriye Xasan waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Beledweyne 2015. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Nimco Faarax Shire iyadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Kakuma. Cabdullaahi Nuur Faarax oo jooga Kakuma waxa uu baafinayaa dadka kale ah Abshira Daahir Cabdulaahi iyo Shukri Daahir Cabdulaahi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1996. haddaba haddii ayna maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdullaahi Nuur Faarax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma ama telefoonka nambarkiisu yahay 2547188610.
kaafiyo cabdi siyaad oo joogto kaakuma waxay baafinaysaa bashiir siyaad cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ingiriiska 2000 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir siyaad cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo kaafiyo cabdi siyaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay maxamed xadiid diili oo jooga kaakuma waxa uu baafinayaa dadka kale ah hana maxamed diidi farxiin nuur hanash iisho cumar cali iyo saalax maxamed saalax dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1993 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maxamed xadiid diili iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kaakuma amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2547228226 baafintina maanta waa naga intaa. baafintaasi dhegeystayaal intaanu kaga gudubno idaacaddeenii duhurnimo ayayna ugu dambeysay waxaa inoo ballanaa 5 galabnimo inta ka horeysa nabadgelyo.